waxaa maanta ka dhacay xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya yaa loo doortay guddoonka iyo guddoomiyaha guud ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya soo dhaw daawade muuqaalkan like saarsiina shargare oo soo flow garay bogeena halkani waa bartamaha TV maanta waxaa baarlamaanka ama xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ka dhacay doorasho aan nooceeda hore loo arag doorasho shacabka intooda badan ay ku tilmaameen inay tahay midii ugu masuqmaasuqsaneyd waayahan la arko waa mid caado ka noqotay guud ahaan Soomaaliya si gaar ah markaasi meelaha uu ka arrimiyo Xasan Sheekh Maxamuud ninkan oo lagu magacaabo Cabdulqaadir Maxamed oo hore loogu yaqaanay wasiir jaamac sidoo kalena ay si tiro badan lahaa oo la dhihi jiray madaxana furan ayaa waxaa soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uuna markaasi u doortay inuu ninkani noqdo guddoomiyaha golaha shacabka balse maanta jilinkii ayaa loo bilaabay xildhibaanadii ugu badnaa oo kuwa dhanka dowladda muxaafadka ah iyo kuwii ugu badnaa ee mucaaradka walow qaar badan oo kamid ah xildhibaanadii mucaaradka ay maanta kulankaasi ka maqnaayeen ayaa la soo yimid isla markaana waxaa loogu caanshubay markaasi ninkan oo ah wasiir jaamac oo hadda noqonaya guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya warka la yaab kale ayaa waxa uu yahay xilligii ninkan markaasi uu khudbad jeedintiisa musharaxnimo uu sameynayay waxa uu sheegtay oo uu markaasi hadalkiisa ku daray in uu ka codsanayo xildhibaanada sharafta leh inay isaga u codeeyaan isla markaana ay u codeeyaan inuu noqdo guddoomiyaha 4 sano soo socota ee baarlamaanka Soomaaliya arintaasi marka dhanka laga fiiriyo waxba ku godan dadka wax fahmi kara halkaasi waxba ogaga muuqanaya bal marka la daawo soo dhawaad adiga maxay kula tahay muuqaalka like saarsiina share garay halkan waa bartamaha TV